بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحابتا dhamaantiin soo dhawaada kusoo dhawaada janalka Faiza's World maanta waxaan soo diyaariyay saabuuniye cajiib ee jirka sida u dhaqayso maasha Allah oo loo isticmaalayo jirka oo dhan iyo xataa wajiga loo isticmaalayo saabuuniye waxa way asxaabta marka ugu horeyso isticmaashiin ala yaab doontiin yani jirka sida u nadiifinaysa ee u dhaqaysa maalinta ugu horeyso isticmaashiin waa cajibaysiin maasha Allah jirka waxay ka qaadaysaa madmadowga sidii scrubki camal waay yani jirka waxay ka qaadaysaa madmadowga way nadiifinaysaa midabkay furaysaa way cadeynaysaa jirka oo dhan waa isku wada ekaysiinaysaa naacmay ka dhigaysaa maasha Allah tabarakallah aad iyo aad ugu wada heli doontiin asxaabta saabuuniyadan waxaan isticmaalaynaa oo meeshan ii yaalo liin burtuqaal iyo saabuun liin burtuqaalka waxaan sameynayaa qobkan kasoo hoolayo qobkeeda u baahannahay biyaheedana waa u baahannahay sidoo kale saabuuntana waa soo hoolaya ka bacdi isku soo noqonaynaa waa kana asxaabta hadana markii aan soo hoolay saasay noogu soo bixeen saabuunta waxa waaye hal saabuun oo lukis ah waxaan isticmaalayo saabuunta marka saabuunta idinka aad jeceshihiin aa u isticmaali kartiin ani saabuunta doof aan jeclahay laakiin saabuunta doof maanta ma ii oolin maanta waxaan isticmaalaya waxa waaye saabuun lukistana waxa waaye saabuun yar marka kulligeeda wada isticmaalaya sidoo kale liinta burtuqaalka waxaan ka isticmaalay laba xabo qobkeeda saabuunta oo hal xabo ah iyo liinta burtuqaalka oo laba xabo qobkeeda ah iyo waxa kale soo miiray hal xabo liin burtuqaal biyaheeda marka saddexdaas aan isticmaalayna isku qasanayna insha Allah marka hore baaquli waxa ku soo shubaya saabuunta marka waxa ku soo qasaya biyo kuleel ah laaynu saabuunta lukiska asxaabta way ka kantahay yani ma aha sida oo saabuun doof oo kale saabuun doof ma u baahna in la qaso oo biyo kuleel lagu qaso saabuunta lucas waxa way adag tahay waxay u baahan tahay in si fiican loo qaso yani biyo kuleel aan ku qasaynaa marka hore waxaa kaloo kula qasaynaa liinta burtuqaalka qobkeeda ama liin macaanta qobkeeda kula qasaynaa waxaa kaloo kusoo darsanaynaa liinta burtuqaalka biyaheeda liinta burtuqaalka hal xabo waa on soo miiray biyaheedan kusoo darsanaynaa marka intaas isku qasaynaa intaas si fiican isugu qasaynaa waxa u sugeynaa min 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo yani intay saabuunta ay ka jilcayso saabuunta markay jilcdana khalaas alaabta inta kale aan ku darsanaynaa insha Allah bas way hadana asxaabta saabuunta jilcayna noqotay waxay noo qasneeday ilaa 5 daqiiqo meelahaas hadana waxaan ku darsanaynaa alaabteena inta kale waxaan isticmaalaynaa oo ku soo darayaa boorash laba qaado oo boorash ah boorash hadda aan soo shiido way asxaabta boorashka caadiga ah waayo oo mashaarida aan ka dhigano oo gasacmanka ku imaado marka waa soo shiiday powder aan ka soo dhigay waxaan ka isticmaalaynaa marka laba qaado boorashka marka asxaabta ee jirka aad iyo aad u dhaqaa yani wuxuu leeyahay maada oo saabuuniye ee jirka nadiifinayso wajiga iyo jirkaba waa loo isticmaalaa maasha Allah aad iyo aad u nadiifinaya sidoo kale lamca uu siinaya dhalaal uu siinaya jirka iyo wajigaba maasha Allah marka boorashka waxaan ka isticmaalnay laba qaado waxaa kaloo isticmaalaynaa caano booro oo laba qaado ah caano boorahaasna waxaan ka isticmaalaynaa laba qaado caano booraha marka asxaabta wajiga iyo jirka iyo timaha waa loo isticmaalaa maasha Allah waa qoynaya ratuub oo siinaya midabka xataa waa furaa sidoo kale boorashkana waxa waaye midabka uu furaa maasha Allah marka caano boorahan waxaan ku darsanaynaa laba qaado waxaa kaloo u baahanahay asxaabta huruudan waxaan ka isticmaalaynaa qaado oo buuxin yani qaadada wax yar dhiman camalan ka isticmaalaynaa yani huruuda ma ka badinayno qaadada oo wax yar dhiban camalan ka isticmaalnay huruuda iyadana maasha Allah Soomaaliya u nahay waxay tarta si fiican u naqaanaa yani jirka sida u dhaqday u nadiifinayso sidoo kale midabkay furaysa jirka bakteeriyada ka dilaysa fawaa'id badan ka buuxin huruuda maasha Allah waxa ugu dambeeya hadana aan ku soo darsanaynaa nasha ama warango cornflour corn starch nin walba soo yaqaano iyadana waxaan ku soo darsanaynaa laba qaado waraangada marka asxaabta waxa way boqorada oo maskaadka waraangada iyada loogu dambeeyay la inna waa isku wada qabanaysa alaabta aan ku soo darsanay yani hal kareem ka dhigaysa ugu dambeystii lagu daraa waraangada maasha Allah shaqadeeda si fiican u taqaana waxa dhan isku wada qabanaysa waxay ka dhigaysaa hal kareem maskaadka waa lagu daraa saabuuniyada waa lagu daraa sidoo kale waxa lagu daraa dilkaha waa lagu daraa dilka suudaaniga idil soo wadaagi dilka maqribiyaha waxa kale lagu daraa kareemaadka horta la'aanteed ma bala sameey karabo maasha Allah علشان saas wax loo dhahay boqorada oo maskaadka waxaa kaloo ku soo darsanaynaa asxaabta saliida grisliinka oo hal qaado weyn ah
hal qaado weyn oo saliidda glycerinka ah. saliidda oo glycerinka iyadana waxaan ka helaynaa ratuuba, jirka waa qoynaysaa maasha allah, nacuumay siinaysaa, xariiray ka dhigaysaa. marka saabuuniyada lagu daro maasha allah jirka waxay ka dhigaysaa xariir. haddana waxaa ugu dambeeya asxaabta akhiirka waxa waaye ma'ward ama rose water. ma'wardigan waxaan ka helaynaa caraf iyo lamca iyo dhalaal maasha allah. haddana waa shiidaynaa, si fiican u shiidaynaa si saabuuniyadeena ay noogu noqoto kareemi aad u qurux badan. saabuuniyadan asxaabta saabuuniya waxa waaye cajiib oo jirka si fiican u dhaqayso maasha allah. dhammaantiin aad ka wada heli doontiin sida anakaba uga wada helnay. alaab waxana waa saaloonada carabta laga isticmaalo oo gabdhaha jirka loogu dhaqo. marka waxaan idin leeyahay baroobeey insha allah waa ka wada heli doontiin sida anakaba uga wada helnay. videogan waxaan idin leeyahay asxaabta like ta saara, like ta hilmaamin insha allah. videoga like badan noo saara si aan hore ugu sii socono insha allah. خلاص وهذا أصحابتي إن صابوني ذينا الدياري نوتها ما شاء الله ساني جاهز نوقتها واتسا ما شاء الله ساسي قصوب بحذي قروح ذا بدن. استعمال كذا وحواي مركو هوري جيركي إنا قويسيد واي إن يعني مركو هوري بيئة اسكو شبيسا كبعد يا جيركو لن استعماليسا إن وجهن والله استعمال كرا وجهن والله استعماليسا مركو حيرة أسويسا أدلا بالدقيقة وسدح دقيقة ميلاسا أسويسا كدب نوحو استعماليسا براش أما ليفة مقرب هدي أهستد ما شاء الله آدي أدو في عيني sidoo kale buraashka caadiga ah yani ay buraash adiga haystaa oo isticmaal kartaa. kadibna biyo caadi ugu qubaysanaysiin maasha allah. markii aad qubaysatiin waayaabisiin jirkiina soo isku bedelo jirka wuxuu noqonayaa liisha iyo nacuuma iyo xariir, midabka xataa waa furmaaya, taftiixa arkaysiin maasha allah. haddii si toos loo wadana marka dambeyso waa arki doontiin asxaabta sida jirkiina uu isku bedelo. saabuuniya waxa waaye cajiib dhammaantiin aad ka wada heli doontiin. marka waxaa idin leeyahay soo tijaabiya, soo baroobeya insha allah. waxaan rajeynayaa dhammaantiin aad ka wada heli doontiin. waxaa kaloo idin sheegaya asxaabta buraashkan waxa waaye buraash oo loogu talagalay jirka qaleelka iyo jirka saluliid kale. waxaa la sameeyaa marka jirka oo dhan lagu buraashaa, jirka wuxuu ka qaadayaa dead skinka, sidoo kale jirka oo saluliid kale naacim oo ka dhigaya. ay waqti isticmaal kartaa sida qubeyska ka hor isticmaalaysa. marka qubeyska ka hor isticmaashid haddana saabuunida isticmaashid maasha allah tabaaraka allah. marka dambeys waxaa arki doontiin jirkiina uu isbedelayo oo qurux badnaanayo. marka buraashkan gabdhaha oo jirka saluliid kale sida maamooyinka oo dhalaan oo kale waxa waaye jirkooda waa isbedelaya, saluliid oo yeelanaya. qofkii yani jirkiisa saluliid kale buraashkan aad iyo aad u anfacaya. haddii yani maxalaadka ama dukaamanka aad ka weysiin waxaa ka dalban kartiin online-ka buraash aad u fiican waaye, basiid oo raqiis marka saas ogaada insha allah. aad iyo aadaan u mahadsantiin asxaabteeda qaaliga aad kaga mahadcelinaya la socodkiina, daawashadiina quruxda badan, sidoo kale kommentiyaashiina quruxda badan oo ducadii amaanta leh oo ay soo qortiin markasto aad iyo aad kaga mahadcelinaya. aad iyo aadaan ugu farxaa marka ay soo qortiin kommentiyaashiina quruxda badan. waxaan idin leeyahay jazaakumullahu alif khayr. insha allah waxaan balan videoga dambe waxaan idin kaga tagayaa khayr badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.